ayadoo deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya haatan ay ka taagan tahay marxalad aad u adag ayaa waxa guddiga gurmadka abaaraha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed maalmihii ugu dambeeyay uu waday qaybinta gargaar loogu talagalay dadka ay abaaruhu ku saameeyeen deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. degmada Baraawe waa caasimada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ku sugan boqolaal qoysas oo soo ritay cudurka shiban biyoodka iyo macluusha ka jirta deegaanada koonfur galbeed. waxa maanta la gaarsiiyay gargaarkii loogu talagalay qoysaskan gargaarka la gaarsiiyay oo tiradoodu gaaraysay 450 ayaa waxa gargaarka la gaarsiinayay isugu jiray bariis iyo saliid. waxana gurmadka dadka ka faa'iideystay warbaahinta ay u sheegeen in aad ay ugu faraxsan yihiin. وجنان بارك وجنان تليلا نان تليلا شكر مالان تمر وجنان إنجليز ولا بعد أسنا أكو متكلم نشبع وجنان إنجليز يا رب الفرح شيء زواج الفرح شيء زواج نان موجود نان فرح شاء راشيك المفروض يبي ونسوق داري دكتور براء واحد سنة غير أسير gudoomiyaha degmada Baraawe iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo dhankoodii goobta ka hadlay ayaa sheegay gargaarkii maanta loo qiibiyay dadkan inuu yahay mid aan ku filnayn balse maalmo ay ku joogi doonaan. halkan waxaan ka cadeynayaa gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madow 8300 lacag ah inay nagu soo simeen 8300 waxaan u isticmaalnay in waxaa ka dhan dadkaas masaakiinta ahaan raashin u gadnay maanta waa maalin kale oo noo weyn oo farxad leh waa degmadii saddexaad oo annaga aan ka qaybinayno raashinkii daaqii mucaawanada ahayd oo loogu talagalay degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose ayaana soo gaarsiiyey gudoomiyaha guddiga Maxamed waxaan ugu mahadcelinaynaa daaqdaas ay soo gaarsiiyeen samaal ahaan iyo guddiga gurmadka abaaraha federaalka kaalmada iyo dadaalka xoogga leh ay ku bixinayaan inay u gargaaraan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. daaqdii waxaan gaarsiinay 450 qoys oo dadka tabaalaysan oo ku nool degmada Baraawe. dadaalkan waan sii wadi doonaa. gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed Madoobe Nuno Maxamed iyo wasiir Macalin Jiis ayaa dhankoodii goobta ka hadlay iyagoo sharaxay deeqdan ay soo gaarsiiyeen dadka ku dhiban degmada Baraawe iyo sida ay ka yeeli doonaan haddii marxaladda ay sii socoto. loogu talagalay deeqda ahayd ee dawladda federaalka ay u keentay maamulada oo madaxweynahan uu noo wakiishay uu yiri ilaahan ku aaminay adinka aan ku aaminay amaanadii madaxweyne Shariif Xasan uu noo soo dhiibay uu yiri hal gaarsiyo dadka masaakiinta waa gaarsiinay ilaahayna marxaati uu ka yahay 8300 raashinkood oo la gaday waa gudunay geeska koonfureed degmada ugu dambeysay Baraawe ayaan taaganahay wixii ammaano ahaa naloo soo dhiibay oo ahaa 8300 raashinkoodii sida aad maqlaysaan gudoomiyihii degmada iyo gudoomiyihii gobolkaba lacagtadii mudneeda la siiyey waa dhex taaganahay. waxaan kaloo idin sheegaynaa in inta halkan ku jirto 10 jibaarkeedii bannaanka ay taagan tahay oo lala gaari waayey raashinkii oo dadkii aad ugu baahan yihiin oo maaragtay intaan 100 jibaarkeeda loo baahan yahay. marka caalamka ayaan baab u jeedinaynaa dawladda federaalka baab u jeedinaynaa shacabweynaha reer koonfur galbeed aan baab u jeedinaynaa in ummadda loo soo gudbiyo la soo gaarsiiyo raashin daawo iyo biyo. Baraawe waa magaalo ku taala irabka koonfureed ee dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waa caasimada dawladda koonfur galbeed balse dawladdu weli ma aysan soo agdhigin waxaana la filayaa in gargaar iyo waliba biidhaamin loo sameeyo dadka ay macluusha ku haysata degmada Baraawe. Maxamed Aadan Soodaal warbaahinta Idaala News magaalada Baraawe.